الفلاني اسمه الفكرة أصلا الحمد لله مناقشة أو مدرسة وكي waxaan u talagalnay dumarka dhalinyarada ah oo qur-aanka yaqaana in la fahamtaa qaabka wax loo baro qaabka loo gudbiyo barashada kadib gabdho badan ayaa waxay noqdeen guryaha dhigayaan tuition oo carruurta ku dhigaan qur-aanka gabdhada afkala jirta laba kuna qaar badan baa maanta soo gala oo dugsiga meesha qaateen oo tuition ay sameeyaan dhowr ismana بعد ما ظهرت موضوع واحد توصل لي سبورت جروب الدول وعم تبعنا ميشن ممكن يصير لو تريو يوم خمسة سياق الزراعة هاي كاريستا أهون بارس هاي كاريستا ولي waxaan daba taaganahay waa ciyaar dhalinyarada hooyada soo dhisto hooyada dhalinyarada markii uu leeyahay waxay inta barnaamijka dadkiisa joojin dhalinyarada kadib dumarka xabsiga inta xaaska wax tiibo inkan jannada kadibna hooyooyinka xabsiga sababta خاصة الستيج الأولى وايد اليوم في براش يجي يبتدي خلاص الكاس يعني براش اليوم إن شاء الله مطلبات المصطلحات البريو اللي يرى ما تخيل دي واحد اللي يجي هذا كلام لا aad ayaan ugu mahadnaqaynaa dhakhtarkayaga mar labaad iyo mar saddexaad aan u sacbina dhakhtarkayaga dhakhtarkeena wuxuu ka mid yahay dadkan aniga aad siyan uu ii yahay horumar qofkaan ku daydo hadda taani wax akidkiisa aragteen oo tawakal ay qabataahe ma ahan mid la yaraysan karo ma ahan mid hal qof keliya uu qaban karo haddana sidaas ay tahay dhakhtarkeena iyo dhakhtaradaba waa ay isku taageen sidii ay mataqaanaa ay uga miro dhalin lahaayeen mirahayna maanta insha allah waxaan rajaynaynaa inuu noo noqdo maanta mid bilowdeen sidaa sababta waxaad aragtaan in arday maanta ay iskuulaadka aadayaan oo waxbarashadoodii iyo mataqaanaa noloshoodii ugu bilaabanaysa maanta insha allahu tacaala dhakhtarkayga aad ayaa ugu mahadnaqayaa run ahaantii tawakal waxay ka mid tahay ururada ka dhisan xaafadda islii ee magaca aad ku leh sababtoo ah barnaamijyada ay qabtaan iyo wanaagii waxay usoo gudbiyaan mataqaanaa وعذرها كذا أنا شخصيا وحامل دهابة توكل عنه مرة قارئ سليني عليه لما قال له أنت أسمع كي أنا بحضر دكتور سيدو إعلامي بحاجة كبيرة هذه problem لاحقين هذا أنا problem في أيوة حلول هذه solution solution كي didn't begin just now أرى يوسف بالله صح هذا أنا سيدا هاي halkii wali waa mid socda ilaa laga gaaro mirihii ugu dambeeyey mid joogsanaya ma ahana insha allahu tacaala miro dhalintiisa waxaa ka qayb qaadanayaan dad aad u fara badan sababta ah shakhsiyaadka bulshada kuma dhisna keliya shakhsi ama hal qof ama laba qof ah bulshadu waa dad isla wada shaqeeya community cannot be based on just one individuality right waxay ku xiran tahay dad badan inay ka wada qayb galaan isla wada dhisno bulshadeenaga si ay u noqoto bulsho better in the next coming future sidaa daraaddeed waxaa barnaamijkan aad inooga caawiyey gacan weyn ka geystay oo aan aad u rabi lahaa inaad si wanaagsan igula soo dhaweysaan shakhsiyaad ka weyn aan dhihi karo shaqada ay qabteen shakhsi qura waa dad isku xil saaray inay wax baraan dhallinyaradanaga isku xil saaray inay soo saaraan a better generation way better than us. I can even call it waxaan oran karaa aniga shakhsiyan inay noqon doonaan dadka naga dambeeya sababta markii aad aragtid xaafadda islii oo kale dhalinyarada ka soo baxaysa ee iskuulaadka aada
sida ay u labisan yihiin macallimiinta ay haystaan tayada ay muujinayaan wallahi waxaa is leedahay maba dad kasoo dhasha ma ahan waddan mataqaanaaye dhowr iyo 20 sano dhibaato ku jiray waxaa is leedahay waa dad aad iyo aad tayada ay muujinayaan iyo mataqaanaaye sida ugu firfircoon yihiin waxbarashada oo aan leeyahay ardayda haddeetaan ku beeri doonto oo aan shakhsiyaad inaan toos la hadlaan jeclaan lahaa ardayda hadda ku beeri doonto iskuulaadkaas ee maanta la siin doono free scholarshipskan ay yihiin arday aad u nasiib badan inay doorteen iskuulaadkan maamuladooda sababtoo ah waa iskuulaad si khaasatan ah u dareen gelinaya waxbarasho ahaan kobcinta maskaxda iyo dhan walbaahi oo qofka bini'aadamka ugu baahan yahay inuu koro waxaan rabaa iskuulaadkan aadka sharafta iyo qiimaha u leh inaan hal ugu soo dhaweeyo aan si wanaagsan oo wada gacmo furanna aynu usoo wada dhaweyno oo isku wanaagsan aan umaleynaya sheekada waxaa rabaa inaan ku hormaro marka iskuulka primary school waa iskuul aan si khaasatan aniga u garanayo maamulaheedana uu yahay maamule very inspiring shakhsi lagu daydana mudan run ahaantii aniga dadkaan aad ku eegtana ka mid ah waxaan oran lahaa maamulaheena primary school dr maxamed inuu noogu soo dhawaado falyatafadal aan si waxaan usoo dhaweyno Salam alaikum. Salam alaikum. The invited guests, the organizers, students, parents, all protocol observed. Good afternoon. Is it evening or afternoon? Afternoon and evening. Is it evening? Yes. You know, when we go to class, we normally ask students, when it is morning, we tell them, good afternoon. And those students who are sleeping, they say, good afternoon, sir. The ones who are awake will just be silent. Then they say, teacher, it's not afternoon, but it is evening. So I can see that the invited people here, some people, they don't know, is it evening or morning? So welcome, please. I'm so much delighted that this kind of organization, this kind of very nice organized scholarship program. First, I would like to thank the organizers for coming up with this kind of well-organized program. When people come together, they normally think on how to make our community go ahead. We, our schools, as you have been told from primary school, when we sit down, we normally think, how can we make our community among the best communities in the world? When we open the school, it's not necessary to make, we are not money-oriented directors, but we normally think about our community. Because you know in Isli, we have many schools. The schools in Isli are not same. That's why you have seen the organizers of Tawakal organization group, when they came to us, they really discussed with us very important things. And the first question they asked us is, are you going to help your brothers and sisters who are in need? Fortunately, when they came to the office, I was the one who was in the office. And then I told them, okay, can you welcome, just sit, have a seat first. Then I asked him, which question have you asked me? Can you repeat your question again? Then they told me, are you ready to assist your brothers who want to learn? Wallahi, I was about to cry when they asked me that one, because if you look at the kind of
guys who have come up with that kind of information to you, you will be shocked, because not everyone who has that kind of mentality to come up with that kind of programs. If you someone comes to you nowadays, people have become brokers. They come to you, they say, "Are you going to assist us?" They say, "Oh, wait, I have a program for you." You will go and look for an NGO there. Then you say, "I want you to fund for me, whatever." They have other way of doing things, which is not good. But these guys, I interviewed them, I asked them many questions, and the good thing is that I know them. They were not strange to me. I knew them. So I welcomed them. They asked me, how many students can you accommodate in primary side, college side, and the high school side? Then I asked them, how many students do you have? It's not good you say, bring one. So I asked them a question, how many students do you have? And how many students have you written to prime to be supported? Then they said, no, we have not organized still, but please tell us how many students you can accommodate. I don't want to mention the number of students which we have agreed. That's a secret. Maybe they will mention it as the program is going on. So we have given them a good number. And we really I personally encourage them to continue what they are doing. Because if at all, maybe I think I was the first person they came to me. Now look at that kind of scenario whereby I couldn't have maybe invited them. If at all I could tell them, I can't support any student in my school. My school is only purely you pay money. If you don't have money, you are not allowed to enter that gate. If I could have said like that, do you think that they could have hope to continue with that kind of program? Do you think so? No. The answer is no. So we really encourage them. I want once more to tell them to continue what they are doing. As Prime Educational Center, both primary, secondary, and high school, we are ready to assist our community, because no one else is going to assist that community if not us. We can't wait. We can't wait somebody to come from the heaven and come and assist our brothers and sisters who are suffering. It is us to help our community, because if you educate the community, you will always be proud. If now 100 people stand on the stage and then 90% become Somali, that is proudness. We are going to be proud, is it? It's going to be bad picture, 90 people stand on the stage and one Somali only is standing on the stage. That's not good. So us as directors, let us join hands. Let us come together and help our brothers and sisters. Let me use my mother tongue. Horta aad iyo aad aan mahadsantihiin sababta waxaa waaye aad aan u faraxsanahay wixii hadda aan sheegi lahaa dhan waa hilmaamin. Sababta waxaa waaye barnaamijkan aad u qurux badan oo lasoo abaabulay aad aan u faraxsanahay. Sababta waxaa waaye anaga maamulayaasha oo iskoolka maaragta aan maamulayna oo xaafadda lisfiyey runtii aad aan usoo dhaweynaynaa barnaamijkan inaan caawino walaalaha in maaragta oo school fees iska bixin karin inaan caawino waaye. maaha inaan dad oo maaragta lacag bes money oriented people inaan noqono maaha. So wixiina waxaa waaye money oriented markaan dhahayo iskuulaadka ku yaalan xaafadda lisfiyey way badan yihiin. hadda logooyinka daafiyey waa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Imagine, out of 150 schools, 7 schools only. So, measures maxaa kusoo bixi karaa? Does it mean the organizers have not gone to the other schools? dadka qaban qaabinayeen hadda may tagin miya xafiisaga way tageen, laakiin jawaabta ay la kulmeen jawaab fiican maaha. kulle ayagaa noo sheegi doonaan. Directors hadda fadhiyaan oo iskoolad maaragta nation lagu soo qoray. Fadlan, let us have that kind of helping, let us help our community. Ubadkan
قفك المقن ما أنا كم مقن سكولاتك حكينا إنه سكولاتك 100% الآن كفاينا سكولاتك أو مرة كينيا كوي لان أو أجنبي كمسكارة اللي ده كذا فريدو هاي كذا تدخل ويا عويا now why not us أنا كم عوينا نتأي سويته هواي واحد وأجل بوس عضواي كذا عاوز فريدو إلهي نوبعونا تمام yeah that is the reality how come that I visit that means even you are going to be assisted school ma maybe dina kala laga awna toma so please that's the direction so you have really shown a very good picture the people who are going to be given sponsors dhalinyarada school imaan doonaan idinkana waa inaad gashin sababta hadda dadaali waysiin berito really ni maaragtay marumeeyos it will not your future or your dreams won't be true you are the one to fulfill your dream ana laga raba riyadaada inaad rumaysdaa qofku imaanay maaragtay oo kudhahay gurigaada ku imaanay oo maaragtay kudhahay waxaan sameey ma jirto so fadlan dhalinyarada oo iskuulaadka kusoo biiri doonaan waxa waaye you have to tighten your belt you have to tighten your belt waa inaad dadaashin sababta waxaa berito idinkana director noqon doontiin scholarship bixin doontiin so this is a chain waa wax isku xiran laakiin haddii fursad lagu siiyo aad ku ciyaarta ka waran you are given the ball and you are given the ball and then you are told can you score and then you the penalty instead of scoring in you score outside now who are you going to blame at the end of the day you will blame yourself because you have been given chance and then that chance you didn't use it well so marka hadalka zaidina ku sii dheeraado aad aan faraxsana maanta waalidiinta soo qayb galeen aad aan maasantiin dhalinyarada aad aan maasantiin siyaasiyiinta iyo mar walba ummadan ha u fikirno fadlan dad kale u maqan malaha ana kale bas aan u joognaa cid kale guriga ku imaanayso oo maaragtay kale horeya schoolkan free guriga oo cid dhays malaha haddii aad chance-ga heshana ka faa'iidayso assalaamu calaykum Another way, like example, that we need to score. Like when we get a free goal without a goalkeeper, we need to score. Ardayda badanka dhalinyarada nahay we watch football right. Aad waxaan u helay markii aan fursad ku heshid gool cidlaa the way he made his point home was amazing. Waa inaan ka faa'iidaysanaa pointigeena waxbarasho oo maanta aynu helnay fursadaas qaaliga ah dhalinyaradan waa helaysana markuu aad la daarmeeyay aad baan uga helay and the other fact that the schools are not just money oriented it's a welfare aad baan kugu mahadnaqayaa Mr. Mohammed from primary school primary school aad iyo aad ayaan kugu mahadnaqayaa waxaan rabaa inaan u gudbo sidaan ii sheegay iskuulaadku way fara badan yihiin waxaan rabaa iskuulka labaad oo aad isagana inooga saaciideeyey ilan dhalinyarada keliya way kala duwan yihiin their dreams are different some waxay rabaa inay bartaan primary schools some waxay rabaa inay bartaan secondary schools some waxay rabaa college schools inay aadaan college iskuulaad fara badan ayaa kala duwan ayaa marka naga saaciideeyey waxaan rabaa marka inaan u waco iskuulka labaad oo ah iskuul aad iyo aad agteeda qiimo uga leh dhammaanta iyaga waxaan rabaa Mr. Abdulqadir Ahmed from Al-Imra School.
wareejinayaa martida ka kala socota ururada sidoo kale degmooyin faarax muslim adoo salaamaya dhammaantiin walaasha iyo kuwa socodmalay oo lagu casuumay xafladda qaaliga ah yaan ayagana salaamaya haddaan usii gudagalo muhiimadda maanta halkan ugu yimid dhammaantiin umaana waxay tahay inaan hadda qaadano waxbarashadan firiga ah waan ugu deeqayno ardaydeena gaar ahaan daairadana ummadda Soomaaliyeed kamid ah oo u baahan in laga caawiyo waxbarashada ka iskool ahaan Al-Ilm College waxaa la socotaan u malaynaya inuu kamid yahay iskuulada ugu horreeyay xaafadda Sibeegansay waxaa la aasaasay 2001 ilaa heer siiyo waxaa aasaasay Abdiraxmaan Cusuf Furred British dhammaantiin waxaa maqashaan magaciisa dareemaysaan haddana inuu cariga Maraykanka iskoolkii ilaa hadda uu socdaa wuxuu taagan yahay inuu ka qayb qaato horumarka dhalinyarada soo korayso gaar ahaan xaafadda Sigi si ay u anfacaan dalkii iyo ummadii aan u taagnayn waxaa meesha ka maqnayn iskoolka in laga aasaasay meel markii hore khamri lagu cabi jiray 2004 xasuusta ama ku nooleedeen xaafadda Sigi gaar ahaan Eleven Street dhanka airportka iskoolka marka wuxuu kusoo wareegay Selemanka Riverside waxaan soo wareegay dhanka airbase-ka taas ayaa keentay in masaajidkii Hall Street iyo ummadii dariska ay aad ugu farxaan in meeshii laga hirgeliyay iskool tayaysan anigu waxaan shaqa la bilaabay gaar ahaan 2006 xilligaas 2015 aan soo dhameeyay dugsi sare waxaa ii suurooday inaan anoo arday ah xeerkii jaamacadda sii wada macalin ka noqdo ka shaqeeya part-time haddana waxaan u shaqeeyaa si fuul ah galab subax habeen ka shaqeeyaa maamulana waan ka ahay taas ayaa keeni karta marka waxay u abuuray inaan caawiyo ka qayb qaato waxtarka iyo horumarka ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada jiilka soo korayo wallahi arrintan markaan la soo bandhigay iskoolka Abdifatax si shakhsiyan ah ayuu yimid oo ii soo bandhigay ma jirin wax kala lalabayna wadada ayaa u xaarnay in ardaydaasi horumarkooda iyo sharaftooda iyo wixii karaan iskool ahaan ka qayb qaadan karno ayna ku jirin wax maaragtay xadidaada muhiimadeena ka iskool ahaan ayaa waxay tahay in ardayda aan horumarino aan soo saarno jiil hormuud u ah bulshada horeyna waan usoo saarnay aad ugu faraxsana halkan weliba salaantii iyo baha saxaafadda oo gacan weyn ayagana ka geysanay oo inaan soo saarno ardayda aysan oo idaacadaha tviyada ka shaqeeyo ayagana aad loo salaamaya waan arkaa muhiimadda haddaan marlabaad usii gudbo waxay tahay ardaydani aan maanta isugu nimid inaan caawino maxay tahay marka annaga ardayda ka qaadan karno ka iskool ahaan way fiican tahay inaan gacan deeqa u fidino markay timaado waxyaabaha daruuriga ah aan laga maarmin waxbarashadu waa iftiinka nolosha ardayga ama qofka shakhsiga hadduu wax barto jahliga ayuu ka baxayaa marka waa waxa keliya loo dhibaatami karna jahliga maanta oo kuwii qalin waxaan leeyahay dhalinyaradan fursadda la siiyey dahabiga ka faa'iidaystaan iyayna u malaynayn in aan dabagal lagu sameynin in initiative-kan la hirgeliyey in kale implementationkeeda waan daba soconaynaa waxaana si closely ula shaqeynaynaa hay-adda ama ururka tabakal oo ayagana aad iyo aad aan ugu mahadnaqayo tabakal si khaasa waan u garanaya adiga ah ka xaafad ahaanna waa dhiganan jiray 5-ka gaar ahaan gololey street aad baan u garanayaa xaruntooda waxay ka qayb qaateen waxyaabo badan fara badan aan isleeyahay maanta way kusoo beeriyeen ururada dhalinyarada ay ka mid tahay in ay dhalintii u sameeyaan shaqo abuur ama xirfado ay ku shaqaystaan iyo dhiirigelino ka mid tahay inay wax baran karaan ay isiga tegi karaan waxyaabaha ay ku jiraan sida maandooriyaha gaangiska lagu biiro maqlayseen daftarka noo sheegay waxyaabahaasoo idin ardayga waxa horseedi karaa marka uu haysan wax fikrada ah ama aan sida ahmiyad ama riyo uu ku gaaro hadafkiisa ugu dambeyntii waxaan leeyahay fursadda qaaliga ah
soo abaalushay arrintan ama ururkan oo ah tawakal sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa matashaarka kasoo gashay madaxda iskuullada matashaarka khaaska ah oo dowladda dowladii iyo kooxaha ururada ah ay u horayaan dad cilmi leh aqoon leh fahmi karana ahmiyadda ay leedahay hadafka maanta halka u jeegno dhammaantiin waan salaamayaa assalaamu calaykum